isku wacyigelino arrin ku saabsan isticmaalka musqulaha mas'uuliyadda loo yaqaano waa arrin caafimaad barnaamijka caafimaadka awiyaan wax buu ka taraa caafimaadka waxaan loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed ay ka mid yihiin dhallinyarada maaragtay gudaha maadaama badan nahay Soomaalidu gudaha badan maaragtay wadamada ugu liita dhinaca isticmaalka musqulaha ka mid nahay ninka sida ay sheegaan xogaha caafimaadka marka barnaamijkan waxaa loogu talagalay intaas inigu waxaa loogu talagalay ardayda iskuuladana lagu wacyigeliyo si gaar ah maadaama badanaa iskuuladana la hubiyo quality-gooda iskuuladana ay leeyihiin ardaydaas waqtiga ku jira barnaamijka wasaaradda caafimaadka waxaa iskaashanaya wasaaradda waxbarashada Jubbaland in la hubiyo dhammaan xarumaha waxbarashada inay leeyihiin musqulo quality oo shaqeynaya oo biyahooda iyo maaragtay saabuunta laga soo baxo kadib waxaan u mahadcelinayaa bahda waxbarashada ee bahda caafimaadka oo maanta isugu yeertay ummadda siday ugu wacyigelin lahayd cudurrada faafa ama communicable disease khaasatan cudurrada laga qaado musqul la'aanta ama banaanka oo saxarada la dhigo waxaynu ognahay ummaddeena Soomaaliyeed cudurrada ugu dhaca epidemic ku noqday waa cudurrada ay sababto feast-to-mouth waxa la yiraahdo qof kasta oo Soomaaliya hadii la yiraahdo cudurka ku hayo waa cudur saxaro afka gashay oo dhibsanaya cudurka ku hayo waxaa laga qaadaa saxarada oo afka gashay hadii la yiraahdo uu dagaalamaya inuu dhibsado iska daa uu dagaalamaya that's why cudurrada in hayo oo dhan waan hebel oran karnaa dysentery-da typhoid-ka shulbiyoodka kalooraha waxaas oo dhan waxa kooriyaanada waxaas oo dhan oo kulligeena wada garayna carruurteena ka daweyno nafteena aan ka daweyno waxaa laga qaadaa saxarada oo afka gashay inta soo qaybgali xalfadan ina oo nadaafadnimada oo weelka iyo guriga iyo ilmaha iyo laka ilaaliyo iyo oraxda iyo laka ilaaliyo oo nadaafada wasaaradda caafimaadka ayaa barnaamijka runtii soo abaabushay annaguna maadaama aanu nahay bahdii waxbarashada waan kala soo qayb galnay waxaan u malaynayaa inuu yahay barnaamij aad iyo aad muhiim u ah wasaaraddana aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo qabanqaabada waxaa laga hadlayaa caafimaad weeye caafimaadkuna qaybo badan buu leeyahay maalmo gaara ayaa loo asaangareeyay qaarkood maanta waxaa la waa maalintii musqulaha iyo mataqaanaa wooshka dad badan waxaa laga yaabaa inay u qaataan musqul marka laga hadlayo wax fudud oo maaragtay oo easy ah musqushu waxyaalaha ugu muhiimsan marka caafimaadka bini'aadamka laga hadlayo koow bay ka tahay marka arrin aad yeelsan kartaan ama fudud ma aha runtii ardaydu waxaa weeye dadka la rabo inay tusaale noqdaan oo nadaafadda ay tusaale noqdaan soo qaybgalka xafladan aynu ugu magac daray maalinta musqulaha waxaan maraynayaa marka laga hadlayo musqusha waxaa laga hadlayaa beydka raaxada yaa yaqaan qof kasta isagoo xanuunsanayo musqusha galaa isagoo caafimaad qabana waa ka soo baxa soo ma marka muhiimadaasay leedahay waa in la gartaa sababta musqusha loo samaystay marka ugu horreysa maxay tahay marka aad garato waxaad u samaysatay waxay tahay waxaa lagaa rabaa inaad haddana garato inaad ilaashato caafimaadkeeda waxaan is leeyahay maanta markaynu ka hadlayno arrintan bulshadeena reer Kismaayo waxaad dhammaantiin og tihiin magaalada waxaa ka jira shughul xoog badan oo maalin walba soo kordhaya shubalkaas sababtiisa ugu weyn waxaa weeye saxarada bannaanka la dhigo lambar 1 lambarka labaadna waxaa weeye musqulaha aan boosoneerada fiican lahayn ee inta saxaradii iyo biyihiiba lagu shubay bannaanka u soo celisa waxaad og tihiin xeryaha barakacayaasha waxaa laga wadaa musqulo sanad walba intaas oo boqol oo musqulood baa laga wadaa haddii la tiriyo tirada musqulaha mashaariicda ah ee lagu qaatay iyo dadka ku xariisan
musqulaha badan waay sababtu waxa weeye foosto qaada 200 oo litir yaa boosaneero looga dhigaa musqusha macnaheedu marka ma aha musqushani in dadkan ay caafimaad u horseedo iyo dadkan inay ku intifaacaan waxa weeye bahashan mashruuc in laga dhigto 2 qof iyo 3 qof markay ku qabaysato ay buuxsanto banaanka u soo dalacdo subax dambe jiingadii qof baa fuusanaya meeshii ay joogtaa shalay meeshii laga qoday yaa haddana NGO mid kale ku soo qaadanaya xuleeyahay IDB-ga musqula malaha new latrine أنا waxaan aqaanaa NGO ya local NGO ya halkan jooga oo xeradaas hadda meesha la yiraahdo dalxiis dhowr boqol oo musqula ku qaatay oo maanta wax ka shaqeeyaan jira biyana hagardaameyn karnaa dadkeena iyo nafteena soo dhibaato ma waa inaynu diidnaa musqulaha noocaasa inaynu aqbalno sababtu waxa weeye caafimaadkeena ay dhibaato ku yihiin bulshadeena dhibaato ku yihiin arrinta kale ee laga rabo diidna waxa weeye saxaro banaanka la dhigo wayna diidna waxaad ogaanaysaan xanuunka shuubiyadka soo loo taag waayay ee maalin walba dadka caruurteena leeynaya sababtiisa waxa iska leh musqusha saxarada banaanka aan dhigay